ciyaari dowlad goboleedyada meel gabagabay marayaan waxaa inoo harsan hal kulan oo berito la dhacayo iyo 4 kulan oo 3 kulan oo sama finalii iyo kaalin saddexaad iyo finalka ayadoo waxaan rabnaa konton kursi oo special VIP ah oo ragga odayaasha ugu talagalay game kasto inta imaan karto gabdhaha wiilal idinka soo socdaan idin cashinaad ku soo diibinaa ilaa yiraahdo kulamada kale aad qabsan doontaan waxaan noqon doonaa dadka ugu soo horeeya ee soo xaadira dowladda runtii waqti yar aan joognaa aniga wasaaraddan waxa waqti yar inoo qabsoomay iyo waxa laga rabay inaan qabano waxaan aaminsanahay aad inay u kala fog yihiin weli aan gaarin hadafkeena laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa annagoo gaashaan iyo garab ka dhiganayna odayaasha dhalinyarada cuslaatay iyo gabdhaha cuslaada ayaguna aan ka reebin annagoo ka faa'iideysanin way aragnimadooda inaan xarajinayna insha Allah inaan kaashan doono sportska aan ku horumarin doono si wada jira xiriirka kala duwan waxaan rabaa inaan si qaas ah ugu mahadceliyo raggii odayaasha dhaxda u xirtay ee ugu horeeyay gudoomiye aadan in la isu yimaado maskaxda la shiilo xilli aan isleeyahay aan ku kaftamay ragga odayaasha qaybtood ama ragga odayaasha gudoomiyaasha البابا اللي حتى يرجع وياش مرة على كيتون هذا وحنا مالينا تعال تقول مثلا البابا بدو وافور بدونا هو بدو حرناين وصيفرنا إن شاء الله وعربنا إن نيرانو سبورتس كخبرات الصومالية دليل أنا وزارة أهان وزارة السيدة وعكش قيسا هرمرين تدلك سبورتس كبوليسيكا أنا وكاشن المركز حريرة ذكر الدول حتى سكتر كواحد قبلينه xiriirka markaas tusay anaga marka waxaan rabnaa farxad noo ah odayaashan maskaxdooda way aragnimadooda aqligooda iyo cududooda inaan ka faa'iideysano inaan talo marjaca geed fadhi aan u sameeyno runtii aan waxaan islahay intaan joogay 2 mar aan kulanay dhamaantood ma wada kulmin laakiin waa jeclaa inaan dhamaantood wada kulmo maraan insha Allah markaan ka dhamaano hadda mashquulada nagu furan ee ugu horeeyo tartankan dowlad goboleedyada si qaas ah u casuumi doonaa gudoomiye aadan aan soo dhiibi doonaa invitation-ka dhamaan waxaan sidoo kale rabaa inaan idin sheego inaan ka qayb galay shir kamid ah shirarka ay leeyihiin Somali Legends Jared qurbo joogtooda waxaan u maleynaa dad aan ka yareen boqolaal inay ahaayeen habeenada kamid ah qaybo kala duwan ee dunida joogeen runtii intaan dalka joogto iyo kuwa kale oo badan oo dibadda joogto runtii waxyaalaha waayaha iyo waqtiga fiicnaa ee ka sheekeynay iyo xusuusta ay hayaan waxay mudan tahay in laga qoro waxay mudan tahay in laga keediyo maadaama anagu hadda aysan jirin waayihii iyo waqtigii ay soo mareen quruxda badnaa maanta dalkeenu markuu burburay ayaguna ay raaceen keedkaas laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dib u soo nooleyno aniga ka wasaarad ahaan waxaan rabaa inaan galabta hortiina idinkaga balan qaado horeyna gudoomiye aadan iyo in kooban oo idinka ka tirsanaa raali cali hadal kuma jire waxaan iloobay gudoomiyihii duqii hore magaalada ahna Legend Sports sidoo kale Muxdiin Xasan asagana sidoo kale ahaa oday sports soo dhisay kubadda cagta oo meel fiican soo gaarsiiyey dhamaantood waxaan leeyahay ayaguna waa maasantii garabyoogii farxad inoo tahay way aragnimadii noo baahan waxaan rabaa marka inaan hadda aniguna galabta contribution-kayga macnaheedu hore waa ugu sheegay haddana aan idin sheego anuu aad ugu faraxsan farxadna ay tahay in la helo taariikhdeena quruxda badneed in la sameeyo inaan aniguna contribution ugu badan ku bixiyo dunida maadaama hadda noqotay digital ay horumartay ay noqotay meel platform digital inaan aniguna aan bixiyo contribution kasta oo ku baxo inaan sameeyo system madal lagu aruuriyo xogta iyo daatada legendska Soomaaliyeed kubaradina inta nool inta dhimatana Allah maxay ay raftooda kama tagi doono taariikhdooda waa soo qoraynaa sawiradooda inta la heli karo waa raadinaynaa waxaan soo gelinaynaa platformkaas si dhalinyarada Soomaaliyeed jiilka maanta nool iyo kuwa naga dambeeyaba ay taariikh ugu noqoto aan u niraano waqti hebel sanad fulaan ilaa sanad fulaan u dhaxaysay kubadda cagta intaan oo la janay qabtay intaan oday qabtay hebel waa inta lama macalin hebel hadda waa joogaa hebel saan waa inaan dhigi karno sidaas si lamid ah dhigi karno basketballka sidaas si lamid ah dhigi karno handballka sidaas si lamid
dhammaan xiriirada dalkeena uu leeyahay inaan taariikhdooda soo aruurino bahda sportska platformkaas lagu shubo marka waxaan rajaynayaa insha allah meel fiicanna waa noo mare systemkaas oo dhismihiisa markaan soo dhammaystirana waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo macali aadan awdiiba waa hanti ay leeyihiin legendka soomaaliyeed meel walba ay joogaanna ay kusoo dari karaan xogtooda waxaan rabnaa in la gaarsiiyo bulshada dhalinyarada soomaaliyeed bahda sportska kuwa hadda dheyla kuwa hadda ka fadhiisay kuwa mataqaana kusoo biiri doono inay noqoto meel ay ka faa'iidaystaan waayo aragnimada iyo taariikhda ay leeyihiin khubaradeena sportska soomaaliyeed runtii waa wax weyn inaan ku faanno weyneyno muujino khubaradeena haddaan muujinin aanan ku faanin waxaan aaminsanahay inaan waxna gaari karin sportska hadda aan raadinayno quruxdiisana aanan gaari karin waxaan rabaa sportska aan raadinayno quruxda leh ee midnimada leh inaan ka raadino maskaxda iyo waayo-aragnimada raggaan hadda maanta joogo gabdho iyo wiilalba leh ee dadkii cuslaaday ee waayo-aragga waa sportska mar kale waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo contributionkiina iyo sidaad garab joogga aad marab ku samaysiin sidaas si lamida inaan ugu mahad celiyo guddoonka waxaan rabaa ayaduna inaan iloobin guddoomiye cali ah ayaduna idin keeni doono invitationkeeda waa badan yihin ragga odayaasha laakiin idinka iska soo xula ciyaarihii dowlad goboleedyada meel gabagabay marayaan waxaa inoo harsan hal kulan oo berito la dhacayo iyo 4 kulan oo 3 kulan oo semifinalihii iyo kaalin saddexaad iyo finalka ayaduna waxaan rabnaa way mudneed waqtiga iyo mashquulka nalata darteeda odayaasha usoo raadi weynay waxaan rabnaa hadda hadduu ilaa yidhaahdo 50 kursi oo special VIP ah oo ragga odayaasha ugu talagalayno game kasto inta imaan karto gabdhahi wiilal idinkina iska soo xushaan gudoomiye cashina idinku soo dhiibina insha allah inaad nagala soo qayb gashaan inta dhimanna aad waayo aragnimadiina iyo waayihiina iyo waqtigiina qurux badan aad qayb nagala hataa fikradihiina aad nagu soo biirisaana aad ay farxad noogu tahay